وعن كلمة كوريجينا كسود وينيا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون فليتفضل مشكورا. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله تعالى وحين كقعدنا وحين أخريدنا درس كصاب سيسن الأمة الإسلامية بين الآمال والآلام. ummadda muslimiinta ahi waxay u dhaxaysaa dhib iyo dhaawac iyo rajo iyo amal. caalamul islaami maanta markaynu eegno waxay joogaan waxay culimmadu odhan jireen qarni lihaana. taariikhda Chinese-ka marka laga warramayo qarni taariikhdiisa ka mid ah ayay waxay ku sifeeyaan inuu ahaa qarnu lihaana, qarnigii dullinimada. laga soo bilaabo waqtigii lagu qasbayay inay afyuunka qasab ku cabaan 1850 somethingkii ilaa iyo dagaalkii labaad ee dunida gabagabadiisii. qarniga waxay ku magacaawdeen inuu yahay qarnigii ay dullinimada ku noolaayeen China, laakiin hadda waa ka baxeen. waxaa haddaba qarnigii dullinimada weli ku jira dadka muslimiinta ah. dadka muslimiinta ah hazaim ama jab iyo dhaawac iyo dhib aad u tiro badan baa gaadhay laga soo bilaabo khilaafadii islaamiga u dambeysay markay duntay. xataa intii ay daciifka ahayd ee iska liidatay waa lagaga baqayay muslimiinta, waayo xuduudina ma jirin. odayga ka madaxda ah hadduu jihaad iclaamiyo muslim ciidda ka badan buu heli karayay. sida awgeed may dhicin xataa yuhuud markii meeta la dejinayay waxay yidhaahdeen wuxuunbaa la dejin karaa hadduu ama isagu yeelo ama khilaafadu dunto. ficlanna markay duntay ee muslimiinta gobol gobol ka dhigeen ee qolo walba xayndaab ku wareejiyeen ayay yuhuuddana inu gooyeen oo yidhaahdeen idinna intaa qaata. markaa caalamul islaami markaa waa muddo imaka qarni iyo dheeraad maraysa. reer galbeed way gumaysanayeen, yahuudi waa gumaysanaysay, raasheenku waa gumaysanayay, Chinesku waa gumaysanayaa, hindidu waa gumaysanaysaa, booramada yari waa gumaysanaysaa, xataa shiica gumaysatay ahlu sunnihii. intaa marka la soo dhaafo waxa gumaysta hadda xukaam العالم الإسلامي kuwa sheegta oo iyagu siyaasadoo dhanna gacantooda ku koobay, dhaqaalahoo dhanna gacantooda ku koobay, dadkana xornimadii ka qaaday, tabaaciyana u yeeshay inay fi silmi walxarb qaraarkoodu inuu ka guntamo galbeedka. ilaa xad ay gaadheen iyaguna haddii meel uun islaam ka bidhaamo inay kuwa ugu horeeya la dagaalama iyaguba yihiin. waa maqlayseen safiirkii imaaraadka ee Mareykan joogay maalintii dhaweyd la wareysanayay wuxuu ku hadlayay isagoo ka hadlaya Suuriya iyo qadiyadeeda. oo le waxa laga rabaa Suuriya inay dawlad cilmaaniya oo madaxweynuhu aanu xoog badnayn oo xuquuqda aqaliyada systemka wax ka siisa. iyaga wuxuunbaa u daran meel in xorriyad laga sheego ama bucbuca la yidhaahdo al-islaami siyaasi, labadaa uun in la sheegaaba iyaga u dhibaa. caalamul islaami markaynu guud ahaan eegno waxaynu odhan karnaa waa adcafi al-umami al-ana fi al-caalam. dunida dadka ku nool waa ummadaha ugu daciifsan. maan rabo taariikh badan oo alama inaan ka warramo. reer galbeedka inta badan dadku wuu arkaa, laakiin kuwa bariguna ma dhaamaan. oo maalan raashiyada tan 1924 ilaa 1940 waa imisa sannadood? 1924 ilaa 1940 waa 16 sannadood.
lixyo tobankaa sannadood wuxuu qabsaday 4.5 milyan kilomitr square muslim leeyahay. lixyo toban sano gudahood ayuu wuxuu qabsaday 4.5 square million miles buu qabsaday bay yidhaahdaa, million kilometers. wuxuu dumiyey wakhtigaa ilaa 10,000 oo masjid, wuxuu xidhay ilaa 14,000 oo madraso, wuxuu raray oo uu dhulkoodii ka raray mujtamac dhan oo muslimiina. inta ka xorowday ka kaalay hadday xornimada sheeganaysaa. yacni Soviet Unionku 15 waddan buu ahaa oo raashinka, 3 waddan ee baltiiqa ah, 3 Yurubta bari ah ee Belarus iyo tan ay imika istilayaan iyo Moldova ah, 3 qawqaasiyiinta ah ee Georgia iyo Armenia iyo Azerbaijan iyo 5 Aasiya al-Wusta. 15 waddan buu ahaa. 15 waddan 7 ku dhowi waa muslimiin. isla markaa imika inta uu gumaystay gudihiisa ku jira 40 qowmiyadood oo muslima baa Russia hadda ku nool gudaheeda. 7 gobol oo Russia ka mid ah bay majority-ga iyagu yihiin. marka la isku soo daro waxa la yiraahdaa Stalin oo quri ilaa 12 milyan oo muslimu ayuu hijreeyay oo dhulkoodii ka raray. badiilkooda 12 milyan oo Russia inuu soo dejiyay. in badan oo ka mid ah waa kuwii soo yaacay Shaam iyo caalam al-islaami iyo khaliijkan iyo meelaha kan waqtiga hore. marka la eego bay dhahaan 1932 ilaa 1934 waa 2 sannadood gudahood 3 milyan oo Turkistaan ah markay Russia iyo China qaybsanayeen. Russia 3 milyan oo Turkistaaniin intuu raashinkoodii ka qaaday buu China siiyey. dabeetana waxay dhahaan 3 milyan baa gaajo u dhintay raashinkii uu ka qaaday oo qura. 40,000 wuu hijreeyay. Grozny iyo wixii uu ka sameeyay si uu baabiyay wada garanaysaan. muslimiinta aan ka warramaya shiicana maaha, oo muslimiin ahlu sunnah waa Axnaaf iyo Shaaficiyiin bas. muslimiinta uu raashinku gumaystay waa Axnaaf iyo Shaaficiyiin. sida awgeed maan jeceli wax badan aalamtii muslimka soo gaadhay inaan ka warramo. markii Soviet Unionkaasi burburayna reer galbeed markii hore caalam al-islaami waxay dhahay xorriyad baanu idin siinay, laakiin min waraa sitaar bay ka maamulayeen. markii Russia meesha ka baxday si dhaba bay gacanta ugu qabteen. oo waa ka General Wesley Clark waa janan tahaysan jiray, American officer weyn ahaan jiray, dagaaladii Vietnam farjar ku dhaawacmay. 8 jir hadda maraya oo retire ah. General Wesley Clark oo ninkan tahaysan jiray baa wuxuu leeyahay markii 11 September nagu dhacday 10 maalmood kadib baan Pentagon-ka imibulay waraysi uu bixinayo October 3 2007 10 maalmood kadib baan imibuleeyahay Pentagon-ka guriga ciidanka Mareykan looga taliyo. markaas waxay ugu yiraahdeen buu Ciraaq baynu weeraraynaa. waan yaabay buu way baan weydiiyay buu maxaynu Ciraaq u weeraraynaa? ma terrorist-ka link la leeyihiin baan ku yiri bay yiraahdeen. markaas ay yiraahdeen maya, 11 September wax shaqaa kuma leh. hadda maxaa loo weerarayaa baan ku yiri buu yiri. ninkii ila hadlayay sarkaalka wuxuu igu yiri buu yiri anigu ma garan maayo. dagaalkii Afghanistan baan galay buu yiri 6 wiig baan maqnaa waan soo noqday. markaan soo noqday ayaan janankii la kulmay buu yiri. dabeetana waraaq uu xagga hoose intuu ka soo saaray ayuu wuxuu yiri madaxdu waxay igu yiraahdeen 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya. 7 dal oo muslimiin ah la weeraraya. markaan yiri waa maxay sababtuna? sababta anigu bagalay ma sheegin buu yiri garan maayo. waa 7 waa Ciraaq, Syria, Lebanon, Libya, Soomaaliya, Suudaan, Iran. 7diiba hadda waa la weeraray waqtigaan ka warramayno. yani 7 ay sheegaynaba 7daba waa la weeraray waqtigaasi kadib. su'aasha isweydiinta le waxay tahay reer galbeedku maxay naga rabaan? dad ducafaa oo masaakiina waa waxba yeelayn oo meel cidla iska fadhiya maxay ku falayaan oo ay ku xog badan yihiin dilistooda?
waxay yidhaahdaan reer galbeedku waxay rabaan waxay u bixiyeen nimankaasi toddobadan wadan weeraraya alfawda alkhallaaqa waxay yidhaahdeen kaws baanu ka rabnaa meesha tan ama si kale haddaan u tilmaamno waa taqsiim ilmuqasam markii hore Cycus Beacon waa la googooyo wadamada yaryar baa laga dhigay markii la hubiyay mid waliba inuu iyaga ku xidhan yahay ayaa haddana waa la googooynayaa mar kale ayaa googooyntii soo noqonaysa oo maxaa laga rabaa waxay leeyihiin waxa la doonayaa inay noqdaan alfawda alkhallaaqa creative chaos waxay yidhaahdaan oo waa maxay macnaheedu wax weeyaan bay yidhaahdeen decentralization then the government will be the UN bay yidhaahdaan waa in wadanada tan dowladnimadooda la baabiyaa decentralizer laga dhigaa cidda ka talinaysaana waa inay noqotaa UN-ta maanta Soomaaliya ayaa ka taliya dowladaynu daynagu markaynu wada hadlayno isu sheeganaa dowlada iyo gobollo iyo waxbaynu sheegnaa dowlad kasta iyo gobol kasta afar wasaaradood oo kamidba hay'ad UN taaba wax siisay hoos tagta waxay sameyn kartaa ma jirto inay hay'adda ku noqoto mooyaan dhowr wasaaradood UNDP baa u taliya dhowr wasaaradood UNESCO u talisa dhowr wasaaradood Save the Children baa u talisa dhowr wasaaradood kuwa qaxootiga u taliya hay'adka UN ta ma yiraahdaan meeshan anaga xukunna laakiin afar wasaaradood hay'ad bay ku xidhantoo ka taliyaan waa dhammaan Soomaaliya dacal ilaa dacal وزارة كستا أفر وزارات كستا وحي كحريين هيئة كواسي كمدا والديسنتراليزيشن كي شيغيين أهد بيتنا government كوينو UN تنغضو وهي دهدين مركي هوري دولة سنتراليز دا كجري إما كوين فيدراليات لو بدلا بيد هذين فيدرال ستيتس العراق ولا جوجوي فدرال ستيتس ولا جربها الصومالية ولا جوجوي فدرال ستيتس ولا جربها ليبيا ولا جوجوي فدرال ستيتس ما وضع نولان كرتان بلا ودلي السودان ولا جوجوي انت سو هداي هدنا هدا لغسي وضع سوريا هداي كوان كسارمتي ولدي هرشي عادي ولا جساري إمك درج الله كرينيا إلهي ستودا كما دقو imika dheeriga loo karinayaa in shan gobol laga dhigo duwaylaadka markii loo qaybiyaa yuhuud meel laga siiyay marka hore imikana marka duwaylaadka loo sii qaybiyo inta hadhaa loogu daraya su'aasha isweydiinta leh wax weeyaan maxay naga rabaan waa maxay waxaynu yeelay naga doonayaan waxay yiraahdaan reer galbeedku isku dan qurayn oo lama wada dagaalamayo qolo diin bay u dagaalamaysaa oo hay'adkoodan masiixiga iyo saxwadoodan dambe kristanka evangelisku u badan yihiin iyo waxaan oo dhami iyagu diin bay u dagaalamayaan ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا بيتاغي ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم كوا سوى الدين قل يكالي waxay u dagaalamayaan dhaqaale ahaan وعالم الإسلامي laba shay baa laga rabaa bashar mutadarriba qof bini aadam oo wax la baraan dawladda kharash kaga bixin hal tusaale aan siiyo Yurub markii la isku furay ayaa Poland waxa ka dareeray dadkoodii aqoon-yahanka ahaa waayo lacag badan baa lagu hayaa Yurubta galbeed dabeetana dhakhaatiirtii injineeradii wixii baa Jarmalka u guuray Jarmalka ay lacag badan ka sameynayaan dawladda Poland waxay soo xisaabtay qof walba wixii kaga baxay dabeetana Jarmalka ay ku ashtageysay lacagta inta laginu soo celiyo hadduu dadkii qaatay dadkaanu soo saaray inta soo kharasha ku baxday dadka raad qaadatay soo celi Yurub la isula tagay Jarmalka lagu xukumay inuu lacagta dees ka bixiyo ilaa dadkan dad baa wax bartay iyadoo halka maraysa ayaa Suuriya durbaanka dhabarka laga dhuftay 1 million people oo dhakhaatiir leh oo injineer leh oo wax walba la bay heleen Polishka waxay yiraahdaan ka xaysta dadkiina uma baahanine waxa la helay badilkii oo laga keenay xagee laga keenay Suuriya baa la helay idan bashar mutadarriba way u baahan yihiin way dhali waayeen dhalinyaro u xoojisay u baahan yihiin man power bay u baahan yihiin hatta kuwaan wax garanayn waa loo baahan yahay iyagoo man power
وحكلوا عالم الإسلامي يلا خامات رخيصة وحلالية وحمعادين لو باهدية الشدالية everything وتلاتة بيستين لقصيستو مركا قولوا أن دين بيقو الرميسرين يقو حقولة دقالمية المنتالة دقالة ودقالمية قوليها كالي waxay caalam islaami ula dagaalamaya geopolitics waxay u arkaan mantiqadan cidda xukunta inay dunida xukumi karto hatta hadduu dhaqaale ahaan ka maarmo wuxuu arkaa mantiqadan maamulkeedu waayo wixii uu ingiriisku u bixiyay the checkpoints waa meelahan wadannada marka la soo galayo laga galo waxay dhahdaan dunida 8 checkpoint ba ku yaala 7 caalam islaami ku yaala kabana makanaalka ku yaalo qura ayaa ka baxsan inta kale laba turkiga ku taala mid waa jabal tariq mid waa kan ku yaala Suez Canal mid waa kanaalkan Hormuz mid waa baabu mandab midna waa maalqa kan Indonesia ku yaala waxay dhahan checkpointska dunida oo dhan gacantooda ku jiraan haday iyagu gacanta kuwan si dhaba ugu dhigaan dunida way kala gooyn karaan sida awgeed ninka raba inuu dunida ka tariyo iyo badaha dunida uu ka taliyo qadiyadan dib baynu uga warabi doonaaye waa inuu checkpointska gacanta ku dhigaa marka kuwa raba xataa le dhaqaalahan uma baahnin oo waanu haysanaa waxay haystaan oo dhami waxay leeyihiin laakiin inaanu mantiqadan xukunaa baan u baahanay qolo kale waxay leeyihiin xataa haddii mantiqada laga maarmo waxaanan rabin model xadaara oo ka fiican ka iyagu inuu soo baxo dadkani waxay leeyihiin xadaaro values leh iyaga xadaaradoodu waa technology laakiin value ma walato qofka bini'aadamka qiimo uma fadhiyo aan ahayn qaanuunka guud akhlaaqiyadka iyo dadnimadii waa dhimatay marka waxay leeyihiin ma rabno modelanka iyaga ahayn inuu dunida ka muuqdo وسوكان China iyo kuwan soo baxaya kuwan waxay leeyihiin tanaafus dhaqaalaha naga dhaxeeya laakiin xadaaro isku bahayno ma values kuma hayna bay leeyihiin laakiin kuwa kan haday soo baxaan bay leeyihiin waa value cusub oo dunida ku soo kordhaya waa systemkayga ka gadisan walidalik afkaartooda dhan markaan isku soo daro bikulli tawaifihim kuwa mutadayiniinta kuwa mulxidiinta kuwa markaad isku soo wada darto waxay leeyihiin meeshaasi inay daciif ahaataa dan inoogu jirtaa العالم الإسلامي إنه ضعيف هذا بدن إنه وجرته ما نربى مركا إن نكور رماد نبدأ يجيستين أنت إلكتي ده وحيابا ما أنت كده عياتي في هذا كاركتر ما كفلان والتاسع بلو تي في أدو قياس وحي كده عشري إما كو كاميرا الله يسكو هيو الله يسأركيو أيا وحا أركتين دوني ده كده عيان ودتك مسلمين تعالوا سمعين يا taasoo aan dunida TV iyo kamera iyo cid ku arkaysa jirin wixii ka dhacay sidoo eegyahay yani kutub taariikh qaarkood ma akhri kartid markaad aragto waxyaabaha la qorayo saddex muhaadaro noocan ay ku qoran laakiin waxaan jeclay inaan inta dambe oo dhan ka guuro aalaamta waayo aalaamtu waa waxa dareemaysaan waxba idinku kordhin maayo waxaynu guuraynaa maxaynu kaga bixi karaynaa amaal maxaa rajo muuqda dadka in badani way quusteen waxay leeyihiin nimankan nuclear weapon bay haystaan kan bay haystaan maxaa cidi kama hor iman kartaa la taagay afar shay ayaan rabaa markaa inaan taana ku soo koobo shayga koowaad waa al-i'timaadu ala Allah al-i'timaadu ala Allah إلهي سبحانه وتعالى إن نبرنه ويسوي كتير سنه خلا بعضنا وفهم السنن التاريخ وإن السنة القرآن كينوغ شيء تاريخ البني آدم كي يسجدده وإن نفهمنا كصدحنا واستشراف المستقبل وإن نسهم الناس علينا oo eegna oo dorosna mustaqbalku sida uu noqon karo hadaynu labadan si fiican u fahamno inagoo lababa ku eegi karna waxyiga iyo mustaqbalka wuxuu inoo tilmaamayo hadduu quraan iyo hadduu sunna yahayba iyo juqraafiya siyaasiya fi العالم الإسلامي hantida uu haysto deegaanka muslimiintu u degaan geopolitics muslimku uu leeyahay afarta shay baynu wax ka tilmaami doonaa
توه الرئيسين ما أنت وتلمامي أدى الله يلاحظه إلهي سبحانه وتعالى وحينات المامي وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة كون كان إنه إلهي قعنتي سكجرى الله ينوت المامية بيده الملك وهو على كل شيء قدير دنيا الدمانتات إن إلهي قعنتي سكجرته isagu wuxuu doonaa abuuro wuxuu doonana doorto wama kana lahum al-khiyara bina aadamkuna inaanu doorashada lahayn kownkan maamulkiisa waxa ku saabsan وخلق كل شيء فقدره تقديرا وكل شيء فصلناه تفصيلا إلهي الدنيا تن وح كستو كدعا وح فوضي ما جرى وح مصادفة اسكو باغنت كما جرت الدنيا وح اسكو باغ ما يونا ساو دعي وهو البقر شاء إلهي بكسعدا سبحانه وتعالى ولذلك أي غزوة أحد دقال كي أحد لورن جري والدقال قوب صديب الله هذا شب يقول مرقرة دقال كاسي إلهي سبحانه وتعالى في سورة آل عمران وحكا والرمية كنتن يسدد آيادودو اسكحية لقبل الأباء آيات بقول يقوبي اللباتنات إلى يبقول يسقال يتضباطا كنتن آيادودو اسكحية با إلهي سبحانه وتعالى كقور رمية دقال كاسي كنت كا آيادودو حكم ده لبا آيادودو إلهي سبحانه وتعالى دنو قروح دي داوعي مسلم كقاري تلماميو دنو الرجدو دا تلماميو دنو تلماميو إلهي سبحانه وتعالى يد القدرة إن مرب الله بن إلهي وحلي ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين إلهي آياتك ووادح الرجل قلنا يا دتك مسلمين توحلي ولا تهنوا هن يتشبنا باللي هضعيفنا هل ليدننا ولا تحزنوا هن مرغوننا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صفة هدي الله إذن كهله إذن كقوة قرية بإلهي إليه سبحانه وتعالى مركزها آياتك وحكتا إلهي وحط المام يلا بالشيء مد جروح دي مسلمين تسوق قاعدة بإلهي تلمامية هو الرب وحلي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هدي داوعدن هلالي بإلهي لي يدب إياك بدي بوقع دابا إلهي لي سبحانه وتعالى لمده آياتنا هل كانوا قصوا عنا مركواتا الاعتماد على الله إلهي وحلي وتلك الأيام نداولها بين الناس إذن كان يكون حدنا بإلهي لي وتلك الأيام وأما المه أن دتك أكل جدين يا بإلهي لي يد القدرة بإلهي نتصينيا أدون كان إنه يسجع عنتي سكوتشرو قول يهزيمه ألم يشدو الرجاء يوحي الدنيا ذكرنا عيوننا نسوي لا سبحانه وتعالى ولذلك ما إلهي آيات كان لنبي الله موسى مركي لقوا الرمي يوحى الرب إليه قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين نبي موسى نبي الله موسى عليه السلام باتولكي وحكيري إلهي تلصارتا وقرقار سدا الله قرقار كيسا ويديستا والصبر والتحمل ياشا مركاسا وحو تلماميا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قلك إلهي باسكاله إن الأرض لله جملة اسمية إنه حرف التوكيد الله صعطاء إلهي كنت الماما إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده أدومه سعيد الضنب الحلسية لكن عرفت الضنباء ما البوه يثبت بدالي دونان يوم لك ويوم لغيرك ولكن والعاقبة للمتقين عرفت واحد اسكاله كو إلهي كعب صدب الرب إلهي سبحانه وتعالى آيات كاله وقصة موسى كصابسا
وكوي يري أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا مركاد نوتمية مركاد نلا جوجي لا بدا وانا القوميسن شري بيد هذا reer banu israa'iil markuu yidhi wax iska dhiciya kadib ayuu markaa wuxuu ku yidhi casaa rabbukum an yuhlika caduwakum wayastakhlifakum fi lardi fayandura kayfa tacmaluun waxaa la arkaa xaqiiqa waxaa rabbigiin inuu dhulka idin dhaxal siiyo la eega bal hadda idinkuna waxaa samaysaan ayuha alaxiba markaan leenahay ilaahay baynu tala saaranaynaa waa inaynu garannaa maamulka kownkan inaan bini aadamku lahayn ilaahay inuu leeyahay في سورة آل عمران لبا آيادود كجرة أي إلهي وحسكو حريا كون كمام الكيس يا بني آدم كمام الكيس رب سبحانه وتعالى وحليه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إلهي وحرس كحري هبينك أيام مالنت قد كودي سدح قلنتو ده واحد انت إيا واحد نول سيدا الله وصوك على صاره أرزاق ده سيدا الله وبحيو تا إيا با الله اسكو حري ما ملك بني آدم كسيدا دادك إلهي وسيسيو مالك الملك نسويه وملك عدو الضونان وسيو عدو الضونان نكسيبه تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء عدو الضونان ربي نكسيبه كقاضو عدو الضونان كوريال عدو الضونان وهوسياله بيدك الخير إنك على كل شيء قدير أيها الأحبة وين فهمنا مركا كواد يعني واحد مودا مسلم كمان تشوغا عقيدة دي سوء نوع من الضعف إن بدنو كم يدو كدعي وين فهمنا القلة والكثرة إن أنا يقوش بكو حدني ترى بدني ده إيا ترى يري ده حق بدني ده إيا حق يري ده إن نقوش الله سورين ساوجد با إلهي القرآن كوحكو لي ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إلهي مالنتي بدر بويدين قرقاري يدينكو أذلاء واذكروا الله إذا أنتم قليل مستضعفون إن يركو هرنا وحي هايان قليل مستضعفون يغو ير أي ألو قرقاري كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله بدنا با إلهي لي كوح يرو كوحوك بدطي كغالب نغطي كوح ترى بدن له أيها الأحبة واقع إنه ما تكون والله أفغانستان وادت كوبا أو مسلمين وحلا دقال لما يودن كي السوفيت يونيون لورنشري راشيا ما هو السوفيت يونيون وشن يتمن دولة دودة ولا الصعدة ونن عيد مدي سجوكتا هي 3.4 مليون هاي نسكرة كوا ديار كامرك الله دونا لكيني كرانا 8.something أيهين وملترك السوفيت يونيون كو 8 مليون بوكبنا عيدا كاين تالجنك هستا عيدا مدى يدهدان رد آمي ولقود لما تشبين بيدهدان مالو قلي واحد شبيي كوح كوبان ومسلمين وأفغانستان دقن ومر لبات مريكان والدولة الدنيا دو حوق بدنا وشان يا أفرتن ودنا كلا وطا كلجي معها شان يا أفرتن ودنا كلا للصعدان بهدنا قلي إسنوا سوتش بيه تام حد كدري ميسا أيضا إنه لا نباشوا قلة يكثركم حدنا كوي ترى بدنا حوق بدنا هوبك بدنا بصوت شبي شبستو ما هاي ندسقور نقبضتوك شبستو نك حوجة بدن لوح الربيع هدوء يدوو شبي ويسوت شبيين وليبا مريكان يكون كلمة الفوق بيكسر دولة يعني دراشة حدود بيلا لهيد وقاري جوسو كلا تلابي فيتنام أن مسلم هين بيشبيسي مريكان جزائر بفرنسيس شبيسي سوريا أحداث ما أنت كشرته وينا ورك لو باهن
ayaa jabiyey Russia iyo maxaa la yiraahdaa Iran iyo quwa Shiica oo isu tagtay Shiica Afghanistan Shiica Pakistan Shiica Iraq Shiica Lebanon wuxuu dhan oo isu tagay oo 100 kun oo ciidan ka badan ayaa la soo jabiyey bale Suuriya kaliya ciidankeedu 400 kun ka badnaa marka laga tago 2011 ka wixii ka horeeyay 400 kun ba ciidankeedu ka badnaa 100 kun basaasiin iyo wax la xidhiidha yihiin 300 iyo waxoogaan ay military yihiin waxa quraanka Ilaahay inoogu tilmaamaya kasradu tirabadnidu inaanay wax xooganahay ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وحستان با إلهي لي maalintii Xunayn markay idin yaab galisay tirabadnidiini oo falam tughni ankum shay'an ba ilaahi waxba si aan idin ka tarin mustaqbalkan dambe aynu hadda joognana de nabiga aba tilmaamay inagoo tiro badan leeynu jabayno yushikuluma man tadaa alaykum kama tadaa lakalatu ila qas'atiha okay hadithku nabigu tilmaamayay umadu inay isugu yimaadaan ba laga yaabaa sida xeedhada dadku isugu yeedhaan saxaabadu waxay weydiiyeen wa min qillati nahnu yawma idin ma yaramba bal antum yawma idin kathir bu nabigu yiri may wa tira badanti idan tira badni iyo tira yari guushu kuma xidna ya an-nasru bi yadillah iddi haq mudatana wasiya wa man nasru إلا من عند الله العزيز الحكيم في سورة آل عمران وفي سورة الأنفال وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إلهي وحولي قوشو إلهي قعنتي سبيكو جرته إلهينا يسقى العزيز الحكيمة كغالب كي حوق بدن له حكمة بدن له عدة مدن إن لوگ هيليو قول لسيو ربي قويا وحلنا أيها الأحبة قرآن كإلهي وحينا قلت المامية وتلك الأيام نداولها بين الناس قصص كوكوبر وقرآن كوي البان دين قود مري إلهي وحينا قرب نبي يوسف قصديس نبي يوسف وقد لقر ردي وهدنا الدونسي قالي وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتها أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا إلهي وحيدي وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الحديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون نبي يوسف وقد لقوا ردي سغير وأدوسي قلي وحبسي قلي أي هدنا إلهينا تصي سغو بغرة هل كان أنت لقاك كيني إلهي ينبأ ودي سبحانه وتعالى ما جرن شربة لوجة اللابية لا يو نقضي محي عزيز مصر وكان نقني فرعون بإلهي قرآن كي نقول الماما ما لنا فرعون كم فكرين موسى هنيري قرية جوجا ما شهادة انقلاب دونا قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون هوين يدي سبالي وقالت امرأة فرعون استجاب لها ألم نربك فينا وليدا لكن إلهي محقوق قبي إلهي وحينا ليه سبحانه وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وحن ربنا با إلهي لكوا لقميستي إنه مدح كدقنا وحن كالور ربابا إلهي لي سبحانه وتعالى كوا انت نولك مكانسيو إن فرعون يا هامان يعيدن كودو وحي كدكتونا يعني له دو شرين انتصيو فرعون يا هامان يا وحي خطال دغور دمي waxay ahayd maxay reer banu Israa'iil cid ka dhalanin oo madaxnimada loogu imanin in antusiyabaan ku tala galay ba Ilaahay leey tagyiirkaas intuu qaatay حوالي دينتو موسى أفرتن كجارة يدي بتنا كسر نقرية هذا هو بدأت كنتم صنادات أما اللي إحدى صنادات وحكير أي تغيير كاسقاطي إن فرعون يعيد كيسين اللوايو كوا مستضعف كناي مدح النقضان أيها الأحبة الأمر بيد الله دون ذا إلهي بكتالية لا قلبت بنكتالين
ولا بران كتلين نعم جروح آد ووين dhaawacyo aad u weyn baa muslimiinta ku yaala dhibaado tiro badan bay dareemayaan aynama wujid meel kasto ay joogaanba ومع ذلك رجاء بدن بيلين هذا إلهي كتير صدا سبحانه وتعالى waxay yiraahdaan markay ka waramayaan mutaghayyiraadka waxyaabaha bay yiraahdaan variableska marka مثلا markaad wax dorayso oo dars sameynayso ama aad wax xisaabinayso waxa la raadiyaa shaygaasi imisa variable bulay imisa shay oo iska dayi kara isbedeli kara isbedeladaasi intay qaadan karaan markaas baad oo dorasi kartaa waxaasi wuxuu noqonayo sida awgeed waxa la inoo tilmaamayaa variableska inaanu marnaba bini aadamku koobi karin sida awgeed oo doras kasto bini aadamku sameeyaa inuu wada asiiba aad bay wadagtay ka alluun baa saxa subxaanahu wa tacaala waxaanad adigu moodayn inuu wax bedelayo yaa dunida islahaa yurubtii bari iyo waarso iyo raashiya 2 sano gudahood lagu waayi doonaa dadkiina waaweyn u baadee soo gaadhay nimanka iyo xoogood iyo militarigood iyo wixii ay ahaayeen 2 sano bariba lagu waayi doonaa cidina kuma talagelin laakiin waxay u daateen sida dominoda maaragtay baashan yara inta la isku taxta xabada la rido midba mid si rido wuxuu daataan adduunka kullaha kadalik laakiin adigu garan maysid inta ay isku sii taxan tahay walidaalka baa waxay sheegaan ajira gabay ingiriisa oo ay kaga waramaan nin gabayaya tirinayo wuxuu leeyahay musbaar baa boqortooyo dumiyay buu yiri musbaar baa boqortooyo dumiyay waxay leeyihiin boqor baa ciidamadiisii ninkii dee hormoodka u ahaa ka haystay ciidamo badan bay wateen dagaal buu galay ninkii ciidanka hogaaminayay ayaa faraskiisa farasku ka buulayay yaro bira kabta birta musbaar baa ku mudan musbaarkii baa ka dhacay bay yiraahdaan birta wahayay qoobka faraska birtii ku dhisanay musbaarkii ayaa ka dhacay dabeetana birtii baa dhacday dabeetana faraskii baa kufay dabeetana ninkii baa dumay waa la dilay ciidankii baa la jabiyay boqortooyadii baa la qabsaday bay yiraahdeen waxay markaa gabay ka dhigeen musbaar baa boqortooyo dumiyay ciidana maankaaga kuma tala jirto inta musbaar dhacaba dawladda dhici doonta waa waxaad kaaga fog waxa jira qoladan cilmiga isbadee Mareykan ayaa waxay yiraahdeen hurricaneskan iyo balaayooyinkan inagu socda hal la baaro cilmi baaris lagu sameeyo oo saadeel in lagu sameyn karaa oo in la garan karaa waqtiyada imanayaan iyo say u soo socdaan iyo waxa kale Lawrence nin la yiraahdo professor loo diray baxthu wada baxthigiisii waxa ka soo baxday nadariyadan oo physics oo maanta la yaqaano oo la yiraahdo chaos theory chaos theory waxa weeyaan waxay markay tacbiiriyaan yiraahdaan butterfly baalkan maxaynu dhahnaa balanbaalista Brazil bay yiraahdaan baalasha ka ruuxday harakoon bay sameyn kartaa bay yiraahdeen dema balanbaalisad soo tirin kartaa markaa imse balanbaalisood baa baalka ruuxay waxay uga dan leeyeen eraygan u tilmaamayaan variableska jira waxyaabaha isbedbedelaya tiro badan leh initialkooda ma garan karno maadaama aan la garan karinna lagama saadaalin karo bahalkan goortu imanayo goortu soo dhacayo waqtigu kacayo waqtigu soo degayo iyo tornaadada tan markay kugu soo degayso iyo markaan kugu soo degaynin maxana masaa'ilka uu tilmaamaya inaan idin dareesiyo idinka weeciyo muruqyada gaalkuun baa aragteen kuwa Alle ina aragtaan subxaanahu wa ta'ala ya alla sidoo dunida tan u maamulo iyo wax yaro isbedelay siday wuxuu bedeli karayaan waxay culimadu yiraahdaan de xadiiska Bukhari ku yaalaaba tilmaamaya nabiyullaahi Muhammad alayhi salatu wasalaam irhaasaat ba ka horeeyay bay yiraahdaan dawladnimadiisa Ilaahay ugu tala galay inay dhisanto مثلا دولة الإسلام كي وحي كردستان تيكوات ومدينة مدينة وحلا يراهدا دقال باكا داعي حرب بعاث اللورن جري دقال كا أوسيا خسرج بايستلي أوسيا خسرج وحي اسكمر ينوحين نندور هايوردن
waxaa la yidhahdaa reer aws iyo reer khasraj wax nin weyn oo waayeel ah laba nin baa noolaa markuu nebigu yimi calayhi salaatu wasalaam wax nin weyna oo aws iyo khasraj ka tirsan laba nin oo qura jiray mid waa kii boqortooyada loo sharaxayay cabdillaahi ibn ubay ibn saluul midna waa abulfaasiq alcaamir ninkii godka nebiga u qoday ee kristanka noqday cararay labadaa odaya habaarqabayaasha noqday ayaa wax waayeela joogay عائشة رضي الله عنها وحي لذي كان يوم بعاث يوم قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد افترق ملأهم وقتلت ثرواتهم وجرحوا قدمه الله لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في دخولهم في الإسلام waxay leedahay nimanka madaxdoodii iyo waayeelkoodii iyo wuxoodii oo dhamay wuu dhintay iyadoo ilaahay ugu talagalay nebiga in loo sii hagaajinayo madiina cid ka hor iman kartaaba inaanay ku hadhin quraysh sanadiideedii baa joogtoo nebiga ka hor timay waayeelkeedii laakiin madiina waayeelkeedu way madheen dhallinyaradiina nebigay raacday calayhi salaatu wasalaam idan ayuha alaxiba aalaamta iyo aamaalka oo ku salaysan inta badan dee haziimada iyo guusha asbaab badan oo tan daahirka aan ahayn baa jirta oo xukunta ilaahi subxaanahu wa tacaala jabkii reer banu qurayda markuu ka warramayay muxuu ku tilmaamay reer banu nadiir maa danantum an yakhrujuu وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب إلهي وحوله سبحانه وتعالى حق نمكا سيقبان أميدن ملين مرة بيني مشو ضلق صار كرياي كبحيان iyaguna umay maleynaynin xusuuntooda in cid u soo dhaafi karto labada malaba saasay ahaayeen muslimiinta malahooduna kaasoo ahaa gaalada malahooduna saasoo ahaa ilaahay se wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala faataahum allahu min xaysu lam yaxtasibu ilaahay se daarihii iyo wixii ay haysteen dhakoodaba lagagama imane meel aanay filaynin oo ku xisaabtamin baa alle kaga yimi baa ilaahay yidhi waa xaggee ilaahay wuxuu leeyahay waqadafa fii quluubihim alrucb fulanimun baa lagu abuuray haddaad baqato hubkaad sidatoo dhami weligii wax kaa celin maayo orodku madmicin bidi yani hubka nin dhiiran oo geesiya wax iskaga celiya laakiin haddii baqa ku galo hubka waxba ma taro ilaahay markaa wuxuu leeyahay qolada tan cabsi quraa lagu riday dhanka kalena taasi waa haziimadii dhanka guushana ilaahay wuxuu tilmaamayaa in qalbiga waxa ku jiro oo run ahi inuu guul keeni karo ولذلك بقى إلهي وحلي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما إلهي وحوت المام يا سبحانه وتعالى مؤمنين بيعنا كل شيء وبيعة الموت إن الدمنا يام بين نبي الله هشيس كل جلة مسلم كي بيعنا كل جلة جيت كهوستيسة إلهي مو أرنين حوجنا وحليدي كسيه وحليدي فعلم ما في قلوبهم وحي قلبي جود كتشري مركي صدق نمده ربي وموتشي أيا فأنزل السكينة عليهم أيا إلهي حسن لون إذا كسودتشي وأثابهم فتحا قريبا قول دون إلهي سي يغنيمو يناني فيلين أيها الأحبة إلهي سبحانه وتعالى أودي سوينا إنه مركه إيمان سنار رمينا وكفى أيدي الناس عنكم با إلهي تلمامي إلهي بادتك قعنتو دا إذن كغبطي وكفى الله المؤمنين القتال إلهي با مؤمنين تدقال كي كغف الله دي وحاصور دمي وحي تلمامي قوشي يقول دردو إنا إلهي قعنتي سكوشيرا وحنفلا يا وقتك إنو دماضي ولذلك هل كاسين سكوشيرنا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.